ليلة الزفاف صحابة رسولك يدتك وناكسنا لا بركعت يونكو حريركي سو تجنجري waxa ka dhigan tahay maanta laga bilaaba mas'uuliyadii aabaha iyo hooyada saarnayd ana kala soo wareegay noloshaada adduunyadaada iyo aakhiradaada ana kuugu imaama ana waxaan diyaar u ahay ka dhigan tahay ilaahay taacadiisa iyo taacada nabi maxamed inaan kugu hogaamiye sida labada rakaca aad igu daba tukatay haddii tolo aniga ii daba joog bay ka dhigan tahay sidaasay ka dhigan tahay للنبي وكيلها خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك ضمرك توقو خير بدن بو نبي قدواتي واتمرك وننكي قد موضوع كفر حساب رسولك يلي هدو الله الله هذا وناكسن بيكو لها الله يساع هدو ايقنا وكفر حين يساع وحكفر حيه كو لها الله يساع وحكفر حيه مقشين يساع وحكفر حيه تصيساع هدي أمرنا أمر قيسا ويأضيع يساع هدي كتغنا وكمغنادنا يدنا ودور صوته وإلى سنتحي ويسئل علينا يساع ومالكنا تاقي ميسو وحي هنتي الديو ودي بتن وأول علينا يساع رسولك يلي marka labada rakacadood ee sunnaha gabadha habeenka la tujinayo waa hadigii saxaabada waa hadigii salafka waxay ka dhigan tahay hadeeto la adiga ana ku imaama ana taacada ilaahay iyo taacada nabi maxamed baa kugu hoggaamine sida salaada aan imaamka kugu ahaa maanta laga bilaabo noloshaada aniga ku imaamay daba joogsay ka dhigan tahay hada marka salaada la tujiyo ayaa waxa sunna halka fooda in la qabto fooda ducada lagu akhrinaya اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليها صمهن خير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه وحي كدغنتahay waxa ducada macnaheedu waa maxay ilaahu haween gabadan khayrkeedana waan ku weydiisanayaa khayrka aad ku abuurtayna waan ku weydiisanayaa sharkeedana waan ka magan galay sharka aad ku abuurtana waan ka magan galay halka fooda maxaa loo qabanayaa fooda waxa ku taalabay culimadu leeyihiin والذاكرة قفك بني آذنك حصوصتها وماشا لغا حصوصته تنمحاس كاقيبا مسوى هو يدا هدادك لقرون وذلك ورا الله بضع سو خطر ما وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها لذلك إلهي قرآنك وكيلها ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا ذاتك عبادة ككري صلاة كبر باري مساجد كبر باري طاعة إلهي كبر باري مسكح ذو مرنا اسكو دعوان ما يسبا إلهي بقول هدو قارو نكا يران تكو صوت بلا بعبادة بقول هدو قارو دادين سو عقلقي سواتام بقول يكتن هدو قارو عقلقي سواتام لو بقول هدو قارو عقلقي سواتام لكن بلا عبادة غفك هدو كبر بارو لحدن جر هدو قارو مسكح دي سو اسكو دعوتام وشنقري قلو بربا كده شنقري ثم رددناه أسفل سافلين بأوتال لذلك أبين كورس قبل هالك إلا قبتها السنة بركة نكي لبادي الركع مركو كعي ينا أي دبجوك ستي سي لبا الركع وجود جرين صلاة دي فجر بلوغو إعدامي إنك أنا كور رمى أبين كعروسة الله سوهو يضمرك كوير حلا أيو عروس كل رايك سدا يولي وركوان خير كوغا الله بديه كاسو بحانا سوسا ما هدا ما شاء الله لا برك عدود وهابين كي هودن صح نقاس تابعي صلة بن أشيم رحمة الله عليه سدو ugu jiray ayaa salaadii fajr loogu eedaamay iyaduna waa gabadh caabidada bahayd oo saalixad oo sidiisa oo kala una at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ilaahay baa quraanka ku sheegay nin dhalinyaro ayaa nin sheekh u yimid oo ku yiri sheekh gabadh wanaagsan oo dabeecad fiican oo diin fiican ayaan rabaaye sideen ku helaa ii sheeg buu ku yiri marka sheekhi baa ku yiri adigu haddaad noqotid adoon ilaahay oo wanaagsan adoonta ilaahay oo wanaagsan ilaahay baa kugu keenay adu wanaagsanow soo gabadh wanaagsan ma doonaysid ha gabadh diin leh addunya mataac
وخير متاعها المرأة الصالحة سو نبي مودن نولش أدويد وابا راحة ير أدويدنا وحا هلي بو نبي يري نيك إلهي وكو هاجاجيه غبر وناكسن ودين لي سو ما دون سيدنا نقول إن هذا غبر وناكسن ها hadaba adu waa inaad noqotaa addoon ilaahay oo wanaagsan marka ninka nin wanaagsan buu ahaa ilaahay wuxuu u keenay gabar wanaagsan oo habeenkii dhannaa salaata leelkii iyaduna aanan odhan aadaankii fajarkaa dhacay uu ka baxay aqalkii ila almasjid subaxdiiba haweenkii baa u yimid caroosadii bal waran waana la ogaa ninkan inuu yahay nin caabudo suufi oo aan u jeedinba dumar markaasay ku tidhi salaadii aan gallay baa ka baxnay tidhi aadaankii fajarka iska dahay in laysa salaamee salaadii aan xidhannay labadii ragcadood aadaanka fajarkaa naga bixiyey tidhi isagii baa la qabsaday markaa oo la yidhi war ninkaagan khayr allaha ku siiye maxaad caroosadda xaleetoole aad sidaa ugu gashay wuxuu yidhi ininkaa iga gardaran buu yidhi markii u horeysay xamaan baad geliseen oo ugu tiraadeen biyaha kulul ku maydho biyihii kulul dhulka qaboba moogtay biyo kulul baa loo dhigay biyihii kulul markaan isku shubay buu yidhi naartii baan xasuustay buu yidhi cadar iyo dhar cusubna waad ii iibiseen oo waad ii geliseen cadarna waad ii mariseen qol waxaad ii geliseen gabadh qurux badan oo la diyaariyeen ay dhex taallo qolkaa markaan galena jannadii baan xasuustay buu yidhi labadii rakaca markaan xidhay buu yidhi jannadii iyo naartii sidaan uga fikiraya salaaddii fajar loogu eedaamay buu yidhi